okay waxaanu hadda soo galnay cashirkii labaad oo cashirkii hore waxaanu ku fiirinaynay qaabkee baynu u design garin karnaa markaasi formkeena waxaanu u design garanay sample-kan caadiga ah arkaysiin waxaanu sameynay student ID full name key gender key iyo form key iyo join date key iyo waxaanu sameynay button key kuwan oo dhan waynu magac bixinay oo magacyo markaasi aan hadhow tool nameska aan code-ka markaynu qorayno aan isku barno ayaynu sameynay hadda marka waxaynu rabnaa inaynu ku xirno oo go'aankeen hadda kala qaadanaynaa manahaas ma waxaad rabtaa inaad school server ku xidho ma inaad MS Access ku xidho ma inaad MySQL ku xidho ma inaad ku xidho markaasi Oracle ku xidho muhiimada koowaad waxaynu siin doonaa insha Allah biidnillah inaynu ku xidhno markaasi MS Access dabadeed markaasi ku wadi doonaa insha Allah project-kan hadda wadno markaynu dhamaystirno waxaynu insha Allah sameyn doonaa inaynu database-yada kale ku xidhi doono okay hadda marka waxaan soo furan doonaa MS Access baan soo furan doonaa MS Access okay MS Access ayaan soo furan doonaa si markaasi aan u samaysto database aan hadhow tool connection ku xidho okay Access waa kan okay xoogaa yar baan yaro sugaynaa si uu hore noogu soo baxo Access-ka waxaanu doorbidinaa waayo waxa weeye maanta systemka aad samaysaa computer kasta uu ku shaqeynaa sababtoo ah computer kasta oo la isticmaalaya ama Office 7 baa ku jira ama Office 8 baa ku jira Office 13 baa ku jira ama Office 10 baa ku jira ama 16 baa ku jira okay waxaan odhanaynaa blank database marka aanu hadda kan desktop-ka iska dhigay laakiin muhiimadda hadhow toole waxaan ka dhigan doonaa version-ka 2003 aan ka dhigan doonaa markaan qoriyo marka hal table-ka marka aan soo sameynayo iyo table-ka aan macnahaasi form-kaan hadda isticmaalayo waa inay isku mid noqdaan okay marka table-kayga waxaan soo bixin doonaa TBL rich okay TBL rich baan bixiyay inaan registration-kooda kan koobaad waxaan odhanayaa student okay waxaan rabaa in xoogaa qoraal iyo number soo raaca markaasi short text iga dhig okay name-kii okay student name marka name ha raaciyo okay the second waxaan raacin doonaa markaas anoo raacin doonaa xagan full name gender form okay soo geliyo markaasi gender okay form okay marka waxaan sii xigsiin doonaa join date okay join dates okay marka caadi waxaan ku dhaafaynaa qaarkood waad bedeli kartaa type sida phone oo kale number waa dhigi kartaa marka inagu short text-ka ku dhaafinaa seen hadhow toona muhiimadda aanu saarno okay marka waxaan save dabeet waxaan odhan doonaa markaasi hadda file-kan waxaan ku save gareyn doonaa macnaha location-ka uu yaalo project-kayga okay marka hadda save aan odhan doonaa waxaan ku save gareysan doonaa markaasi Access 2002-2003 okay database okay yes okay waxaan tegi doonaa picture dabeet waxaan soo geli doonaa xagga okay project-kaygu location-kiisu simple project waxaan tegi doonaa document-ga dabeet waxaan aadi doonaa meesha uu yaalo okay location-ka uu yaalo waxaa soo tagna xagga yaalo picture okay simple project waa kan click baan siin doonaa markaasi simple pingan siin doonaa design-ka xaggan ayaa markaa ku save gareyn doonaa marka database-kayga waxaan u bixin doonaa magac markaa ka duwan marka waxaan bixinaa simple project okay anoo raacinaya macnahaasi isku mid ka dhigay okay muhiimaddu maaha laakiin magacaad doontaad bixin kartaa database baad bixin kartaa waxaad rabtaad bixin kartaa okay save okay hadda waxaan soo sameynay markaasi table-keeni waa kan form macnaha VB-geena waa kan okay marka hadda waxaan rabnaa connection-ka inaan xidhno in isku xidhayno kale okay waxaan iman doonaa marka xaggan project-kayga ayaan xagga right click siin doonaa dabadeed waxaan sameyn doonaa marka add baan odhan doonaa marka module baan kusoo darsan doonaa okay si marna aan macnaha meel gooni u saaro marka waxaan bixin doonaa connection okay add baan odhan doonaa okay connection-ka waa inaan u sheegaa macnahaasi noocuu yahay macnaha inuu yahay marka waxaan odhan doonaa isoo import garee waxaad isoo import gareysa marka code-ka inoo weynay okay ilaa 150 baan ka dhigay okay importis
marka yiraahdo okay aan soo geynay wali la boqol sadarta okay boqol taga importing system data OLEDB mana waxaan halkan u xirayaa waxaan doonayaa all reference-yada aan u baahanahay oo dhan ama requirement waxyaabaha aan u baahanahay ee declaration-ka aan u baahanahay waqtiyada waa inaan xaggan ku wada dhamaystirtaa si hadhow toole marka aan form kasta uusan iga baahnayn mid kasta dhex dhigo okay then marka xaggan models ka dhex samaysan doono markaasi waxaan oran doonaa public okay public RDR mana reader waa readerkii mana data kii noo soo akhriyay marka asa UDB data reader pay is equal nothing okay so kale waxaan soo isagana soo declare gareysanaya isagana another variable oo dt mana as a data set okay data table okay data table okay so kale waxaan soo declare gareysanaya isagana mid kale oo marka zm as markaasi OLEDB command okay marka isagana soo kale waxaan ka dhigi doonaa intin mana midan hor loo isticmaalaa ama oo kale waxa kale isaguna markaasi aan declare gareysan doonaa oo alla ku idmaayo IDB oo ka asa markaas oo LEDB as a data adapter okay for nothing okay waxaan hadana declare gareysan doonaa marka connection kayga isticmaali doonaa variable connection ka isticmaal doonaan as OLEDB connection okay equal not okay inta marka hadaba sameeyo waxaan hadda sameyn doonaa markaasi in aan connection ka xiro soo kale in ka tagin macnaasi data set ki okay marka yes baan qaadan as data set okay inta markaan sameeyo hadda waxaan sameyn doonaa xiri doonaa connection key okay waxaan qaadan doonaa marka CS baan qaadan doonaa oo variable ka aan qaadan doonaa mar walba as string equal dabeet waxaan sheegi doonaa meesha uu ka soo xigsanayo ama meesha uu ka soo xigsanayo ana marka double code gelin doonaa waxaan doonaa kaasi provider equal markaasi waxaan noqon doonaa meesha uu soo xigsan doono Microsoft.ize marka xaggan ize ka dhiga qaarkood waxay ka dhigaan OLED oo macnaha connectionka markuu 64 yahay markuu 32 bit yahay ana hadda waxaan isticmaalayaa markaasi 32 bit baan isticmaalayaa saas awgeed baan ku dhigayaa oo soo kale waxaan gelin doonaa OLEDB marka hintisku ma siinayo xaggan okay waa in markaasi aad ugu fiirsataa this one hadhow 1240 one isku bedeli doonaa marka 64 isticmaalayso okay semicolon the data marka hadda ayaan markaasi zoriski la qoray okay zoriski markaasi wuxuu la mid noqonayaa marka inagu waxaan isticmaalnaa qaarkood waxaan isticmaalnaa markaasi in computer marka inagu la isticmaal qaarkood isticmaalnaa computerkii kaliyaatay lagu isticmaalo tusaale hadda computerka lagu gaciso wuxuu haddana doonayaa connectionka inaad computerkii macnahaas isku mid aad isqaabilsiiso okay anagu hadda waxaan u baahanahay de computerka inuu ku shaqeyn karo anaga computer kale inuu ku shaqeyn karo marka waa inaan datadii ka dhignaa in mid computer kasta ku shaqeeyo marka datadii waxaan ka dhignaa inuu direct kasta aqbali karo markaas okay marka waxaan qaadanay calaamada shiftiga calaamada markaas aan orta loo aqaano marka data ma gelin doonaa dabeed waxaan galin directly aan qori doonaa markaasi si macnahaasi aan u fahmin macnahaasi meesha uu macnahaasi ka soo kacayo uu garto macnaha meel kasta oo computerka ku soo jiro magaca uu raadin doono okay magaca uu raadin doono okay then waxaan raacin doonaa markaasi backslash caadi dabeed waxaan raacin doonaa markaasi database waxaan bixiyay markaasi simple marka inaan xasuusto weey okay waxaan mid doonaa xagga markaasi egg theory okay theory waxa direction kii xakaas waa kan pingi waa simple project marka intaas aad qori doontaa simple project database okay
dot mdb. Okay, mdb maxaa macnaa u dhiga haddii tusaale ahaan aan aado meesha uu yaalay. Okay, simple. Okay, meesha uu yaalay haddaan aado tago this one bingi. Okay, project debugging waa kan database-kayga hadda. Okay, file typekiisu waa maxay? Waa mdb, macnaha waa t2003 markaasi 2 waa versionka ugu fiican marka access marka lagu xirayo ama database. Okay, waxaan isla fahmaynaa markaasi hadda in macnahaas qaarkood waa 17 ku xirnaa accessdb bay dhahdaan. accessdb marka inagu ma baahni, waayo accessdb badanaa marka setupka laga dhigayo waxa ka fiican kan macnaha mdb-ga ka fiican, isagana ka wanaagsan. saas baan u doorbidaynaa macnahaasi inaan doorano mdb. Okay, dan intaa markaynu dhamayno waxaan markaas sameeynaa isagana sidoo kale semicolon ta raacinayna. waxaan u sheegaynaa markaasi in uu connection ka yahay markaasi mid persistent mid la hubo oo macnaha security leh. dabeetana waxaan oranay information-kiisa oo dhan involves oo dhan waxaan ka dhigaynaa markaasi inuu noqdo markaasi flash. Okay, intaa markaan dhamayno ugu dambeyn xaggan flash waxaan gelinaynaa markaasi semicolon, then intaasaan kusoo xirnaa. Okay, xagga markaa connection-keeni waa data directory. marka waan eegaynaa source oo db inaan wax qaladna markaasi Microsoft provider string. Okay, markaasi fancyna. Okay, waxaan nima doonaa markaasi phone-keeni. marka hadda waxaan rabaa inaan ogaado waxaan ogaado inuu macnaha connection-kii wax jiraya internet bilaad. marka kan gali doonaa dabeetana marka waxaan qonaa isku day. waxaan isku daydaa markaasi try-catch. waxaan isku dayaysaa in macnaha haddii uu connection-kii noqdo macnaha con baan soo qaadan doonaa content la soco. waxaan kasoo declare garaysanay macnaha waa variable. waxaanu kasoo declare garaysanay halkan. uma baahanayna mar labaad inaynu declare garayno. si public aynu soo declare garaynay oo meel walba macnaha phone walba kasoo arki karno. Okay, con baan odhanaa markaasi equal new connection. Okay, new OLDP connection bracket zs. Okay, zs tan meel kale kama iman. Okay, hani fahamna xaqaas. zs tan waxay ka timiday this connection keenay xambaarsan tahay waa kan waa variable ka aanu declare garaysanay. zs ka waxay xambaarsan tahay markaasi waa connection keenay. Okay, ku noqon markaasi xageeni phone keenay ku noqon. then maxaan oranaa connection-ku waa inuu noqdaa mid markaasi furan. haddii uu furmo waxaad noo soo bixisaa fariin markaasi ama message. Okay, message odhanaya markaasi connected. Okay, marka aan raaciyo markaasi vb oo kalena si markaa batan aan u sameeyo loo geeyo vb information. Okay, marka waxa mar allaale markaan soo kiciyo in batanka taabto haddii uu connected ii yiraahdo connection-kii wuxuu haddii kale waxba khaldan kayga. marka connected saas waxaan ku cadaynay markaasi in ay wax walba sax yihiin. tusaale waxaan tijaabin doonaa hadda waxaan iman doonaa in connection-ku xiran yahay. waxaan eegi doonaa kan dabeetana connection-kan khaldi doonaa. maxaan khaldi doonaa xagga simple database-ka. waxaan raacin doonaa s bal waxaan tijaabin doonaa inuu shaqeeyo. that exactly wax shaqeynay ma jirto. taasi marka waxay cadaynaysaa in connection-kii hadda aynu masaxnay uu khaldan yahay hadda, laakiin markii hore connection-ku uu ahaa mid saxsan. kaasi waa cashirkeeni labaad insha Allah biidhnilaahi. waxaanu kasii socon doonaa xagga iyo cashirka saddexaad hadduu alla idmo waanu kasii socon doonaa.